madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa oo ku sugnaa 3 casho la soo dhaafay dalka Japan ayaa halkan u yimid ka qaybgalka shir caalami ah kaas oo lagu horumarinayay iskaashiga Japan iyo qaaradda Afrika. madaxweynuhu intuu halkan ku sugnaa wuxuu kulamo gaargaar iyo kuwa gudba la yeeshay madaxdii iyo wufuuddii halkan ka soo qayb gashay. shalay wuxuu madaxweynuhu khudbad ka jeediyey kulan gaar ah oo loo qabtay geeska Afrika iyo sidii Japan ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd horumarinta geeska Afrika oo runtii isbeddello waaweyn oo siyaasadeed iyo kuwa amni ay ka dhaceen. Soomaaliya waxay ku jirtaa soo kabashadaasna waxay sababi kartaa inay door muhiim ah oo hogaamineed ka qaadato horumarka geeska Afrika. madaxweynaha intuu uu shirkan socday waxa uu la kulmay madaxweynayaal Afrikaana iyo madax ka socotay hay'ado caalami ah iyo bunuug kuwaas oo doonaya inay kaalin mug leh ka qaataan horumarinta Soomaaliya. dal walba oo la fariisanay iyo madaxdii iyo madaxweynuhu la kulmay waxay inta badan ka midaysnaayeen inay abaal weyn Soomaaliya uga hayaan garab istaagii ay u muujisay halgankoodii iyo gobonnimadoonkoodii iyo horumarintoodii xilligii aan dawladnimada adag haysanay. maantana waxaan rabnaa taa inaan u turjumno maadaama aan ku soo noqonayno fagaarayaal badan oo caalamka ah iyo kuwo gobol iyo kuwo qaaradeed in aan ka faa'iidaysanno fursadahaas iyo abaalkii aan hore u gashanay si aan u xoojinno xiriirkeenna aan dalalka la wadaagno. shirka oo maanta la soo gabagabeeyayna waxaa laga soo saaray baaq loo yaqaano baaqa Yokohama oo diiradda lagu saarayay horumarinta kheyraadka ay haysato qaaraddan iyo sidii tiknoolajiyada iyo horumarinta kobcinta awoodda dadka looga faa'iidaysan lahaa looguna soo dabaali lahaa qaaradda Afrika inay noqoto mid ka faa'iidaysata ixtimaalkeeda dhaqaale ee ay maanta haysato. madaxweyne Farmaajo wuxuu berri insha Allah hadallo la yeelan doonaa ra'iisul wasaaraha dalkan Japan mudane Shinzo Abe waxayna ka wada hadli doonaan sidii aan bog cusub ugu furi lahayn xiriirka Japan iyo dhexmari kara Soomaaliya.